السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داود يا ركب كسر إنك داونيسان بوانيجو إيد العمر iyo anigu ah maxamed cabdi bootaan halkaad inaga daawanaysaana waa bootaan media daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij kooban oo aanu ku falanqayn doono madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo tilaabadii uu qaatay jimcadii oo uu qalinka ku duugay masaajidka dalkaasi Turkiga ku yaala magaalada Istanbul in uu masaajidkaasi dib u soo noqdo oo masaajid markale noqdo waxaa barnaamijkani hadduu alla idma inagala qayb qaadan doono walaalkeen محمد عبد الله فري إيوه شيخ جعفر حاج علي أو كسجن مقالة نيروبي أنا ورئيسكني قاضي دون أنا جو إيه عمر أو إسلام مركزين عن قاضي دون ولكن محمد عبد بوتان ونين وريا كم إذا وريا شاف كسجن مقالة حيوات كان مقالة مومباسا محمد عبد بوتان أنا جو حين وجود قرينا برامج كشكونا إن شاء الله وان أدل مريضنا إن وحين أركي أديكو وراقها يقالين كما أركت إصدر صاري إن جورسيه الرئيسي محمد عبد بوتان waxaynu ognahay in masaajidkaasi Aya Sofia waxa weeyaan shalayto un la furay waana wax aad iyo aad loogu farxo adigoo soo koobaya marka soo koobayo bal sawir guud inaga sii aad iyo aad ma santahay idle Umar sidoo kale waxa mahadsan daawadaasha hadda tooska inoo daawanayaan barnaamijkan idle waxa aanu dul istaagi doonaa madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan maalintii jimcada ahayd go'aankii uu gaaray oo qalinka uu ku duugay in masaajidka Aya Sofia oo masaajid taariikh weyn ku leh dalkaas Turkiga inuu masaajidkaasi oo mutxaf aha ama museum aha inuu masaajid markale ku soo noqdo iyadoona muddo 8 sano ka badan masaajidkaasi oo ka maqnaa gacanta muslimiinta wax aad loogu farxana way tahay bal su'aalahaada soda aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiib bootaan waxaan rabaa inaad dadka fahamsiiso iyo waxa weeyaan inta aynu xidhanba horta masaajidkani goorma ayaa la dhisay xagee ayuuna ku yaalaa masaajidkani waa ma santahay illa Umar masaajidkan waxa la dhisay 1500 oo sano ka hor ayaa masaajidkan la dhisay waxaana masaajidkan xilliga la dhisay ahayd sanadkii 532 qiyaastii 40 sano ayuu ku dhowdahay dhalashadii Nabi Maxamed ka hor ayaa la dhisay Allahumma salli ala Muhammad marka masaajidkan markii la dhisay goob kaniisad ayay ahayd oo waxaa dhistay kaniisadihii bariga ku yaalay Orthodoxiska lagu magacaabi jiray ayaa dhisay iyagoona oo qayb ka ahaa kaniisadahaasi Roomaanka aad iyo aad u mahadsantahay marka masaajidkaasi marka sida la socotaanba waxaa laga dhisay ama waxa weeyaan waa cariga Turkiga magaalada Istanbul marka horena kaniisada ayuu ahaa marka maxamedow sidee buu marka kolkii horeba ku soo galay gacanta muslimiinta iyadoo aan ogna meesha inay ahayd meel macbada oo waxa weeyaan kulay meel waxay diimihii hore lagu haystay lagu caabuday marka sidee buu ku soo galay gacanta muslimiinta masiixiyiintu goobta macbadka waxay gacanta ku hayeen 916 sano ayay gacanta ku hayeen waa muddo aad u dheer ayay gacanta ay ku hayeen marka markii muslimiintu ay gaareen dhulkii la oran jiray Qistantiniya oo ay furteen sida uu Nabi Maxamed ugu duceeyay Allahumma salli ala Muhammad in muslimiintu halkaas gaari doonaan oo amiirka iyo ciidanka halkaas gaari doonaan ay noqon doonaan ciidan aad u fadli badan ciidan aad iyo aad u wanaagsan ayaa Maxamed al-Fatih ayaa halkaas gaaray markii uu gaaray ayaa waxa uu la wareegay masaajidkaasi xoog kula wareegay masaajidka waa uu gatay waxaana uu ka soo gatay kaniisadii xilligaasi halkaasi gacanta ku haysatay marka waxayna tusinaysaa in muslimiintu aysan mararka qaarkood ay tusiyaan dadka kale ay la nool yihiin wanaagga diinta islaamka iyo waliba ixtiraamka ra'yigooda iyo fikirkooda marka dhulkii maadaama ay muslimiin ay yeesheen ayna soo degeen kaniisadii la dhisay xilligaasi muslimiinta ayaa soo gatay waxaana xusid mudan Maxamed al-Fatih ilaahay u naxariistay in lacagtiisa khaaska ahayd in uu ku gatay oo aysan ahayn xataa khasnada muslimiinta wax ka yimid lacagtiisa khaaska ahayd ay ku gatay kadibna heshiis iyo wuxuu la saxiixday qoladii kaniisadda xilligaasi haysatay agreement iyadoona heshiiskaasi markuu dhamaaday kadibna Maxamed al-Fatih uu masaajidkaasi uu waqfay oo uga dhigay muslimiinta mid ay leeyihiin isagoona ugu magac daray Aya Sofia aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed cabdi bootaan marka masaajidkii haddii marka uu sidaas ku soo galay gacanta muslimiinta uu ahaa meel ay muslimiintu ku cibaadaystaan oo uu ahay yani beed ka mid ah beedadkii ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala lagu caabudayay sidee marka ku dhacday in uu haddana dib ugu laabto
ama uu dib u noqdo meel waxa weeyaan dalxiis loo tago ama macbad kale uu mar labaad aad iyo aad waa mahadsan tahay idle cumar taariikhdu way is bedeshaa mar kasta maxamed alfaatix markuu masaajidkaasi la wareegayay taariikhdu waxay ahayd 1453 ayay ahayd muslimiintuna masaajidkaasi muddo dheer ayay gacanta ay ku hayeen oo gaaraysa 481 sano ayay muslimiintu ay gacanta ay ku hayeen masaajidkaasi oo ay maamulayeen oo ay muslimiintu ay ku cibaadeysanayeen marka waxaa dhacday sanadkii 1924 dowladdii islaamka ee cuthmaaniyiinta maxamed alfaatix iyo faraciisi ay wadeen oo ay xukumayeen oo ay soo gaartay bariga africa iyo meelo badan oo dunida ka tirsanba waxaa dhacday in dowladdii la afgembiyo oo dad dalka turkiga u dhashay iyo saaxiibadoodii kale ee galbeedka ay u tashadaan khilaafadaha islaamka oo dowladda la minjaxaabiyey oo la riday oo afka ciidda loo daray oo ahayd wax aad iyo aad nasiib darro u ahayd markii ay dhacday arrintaasi 1924 ayaa 10 sano kadib afgembigaasi uu sameeyey ninkii lagu magacaabi jiray Kamaluddin Ataturk waxaa dhacday in sanadkii 1934 masaajidkii laba xiray kadibna uu ka dhigayba meel matxafa oo dadka ay dalxiis ay u yimaadaan oo kaliya marka dhacdadaas aad u xanuunka badan ayaa dhacday waxaana 80 sano oo iyo in ka badan oo hadda ka soo wareegatay mar kale masaajidkaasi uu dib ugu soo noqday gacanta muslimiinta waana wax aad iyo aad runtii loogu farxo idlow haddaan waxyaala halkaasi dib aan ugu laabano saaxib botan waxaa la sheegay ninkaasi runtii in uu dagaal ma ahayn kaliya inuu xukunka qabsaday inuu yacnaha dagaal diimeed xitaa diinta islaamka inuu dagaal la galay oo yacnaha waxyaalo badan uu waddanka ka bedelay qaanuunkii maartay ayadu taas maxaa inooga iftiiminaya runtii Ataturk markii uu la wareegay waddanka oo dowladda islaamka uu riday waxa uu la yimid dagaal toos oo diintii uu kula dagaalamayay waxaana uu sheegtay inuu aasaasayo dowladda rasmiga ee Turkiga inuu aasaasayo ayuu sameeyay waxa uu magac daray wuxuu la dagaalamay diinta ayuu la dagaalamay waxa ognahay xitaa aadaankii in uu afka Turkiga u bedelayo carabiga meesha oo ka saaray luqadda carabiguna waxa ay tahay aasaaska diinta islaamka lagu fahmo quraanka uu noogu dhigan yahay axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ay noogu qoranta aadaanka lagu jeediyo lagu adimo Allahu akbar marka isaga afkiisi ayaa wuxuu ku sharciyay in lagu adimo sida hadda ku adimiyo kara Allahu weyn adoo ku adimiyo kale ayuu soo sheegay isagoo la dagaalamaya luqadda carabiga haddii aad carabiga la dagaalantidna waxa ay tahay macnaheedu inaad islaamkii la dagaalamaysid iyo fahamkii iyo raadkeedii maadaama diintan islaamku ay tahay diin luqa carabiya oo fasiixa kusoo degtay aad iyo aad waliba waxaan maqlay waa sababta Soomaaliya ay dowladaha qaar ay macnaha u doonayaan inay uga zuuliyaan luqadda carabiga in looga zuuliyo oo dadku ay rabaan inay luqadda afka Soomaaliga iyo luqadaha kale ay ku hadlaan marka waa sax marka luqadda carabigu runtii waxay ka turjumaysaa diinta islaamka waa barasho waxay fahamka diinta islaamka weyn si wanaagsan maxamedow haddaan su'aal kale ku weydiiyo waxa weeye marka masaajidkii markii la celiyay ee laga dhigay meel macbad meel museum oo meelaha dalxiiska loo tago ma meel dalxiis oo loo tago bay ahayd oo aan badiin shaqo ku lahayn mise wali arrimo diina ku dhex jiran oo kaniisadii wax baa ku dhex yaalay oo meel waxay ahayd dalxiis kaliya loo tago oo matxafa qofkii raba inuu iskaga tukado iskaga dhex tukan kara laakiin yacni meel aadaan leh oo salaad leh ma ahayn waxay ahayd meel cibaado ma ahayn meel matxafa oo hay'adda qaramada mid u qaabilsan dhinaca aasaarta iyo dhinaca dalxiiska u qaabilsan UNESCO ayaa hoos imaanaysay aad iyo aad marka maxaa keenay hadda marka masaajidkan in la soo celiyo in lagu soo celiyo masaajidna dib loogu soo celiyo maartay يعني إن أي نقطة قاب عبادة الجو عباديستم waxaa keenay ilo waxyaalo fara badan oo isbiirsada ayaa keenay koo waxaa ka mid ah in masaajidka markii ay la wareegeen muslimiintu sanadkii 1453 waxay kula wareegeen qaab sharci ah way gateen haddana heshiis ayaa jiray oo qoran oo dhex maray kaniisadii Orthodoxiska ee bariga iyo Maxamed al-Faatix amiirkii muslimiinta xilligaasi ayaa jiray marka heshiisyadaasi oo yaalay ayaa loo maray maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaana ogolaatay in masaajidkaasi masaajid ahaan dib loogu soo celiyo baarlamaanku way ogolaadeen ugu dambeyntiina
qalinka ayaa uu ku duugay madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isagoona masaajidkaasi hadda dib ugu soo celiyay gacanta muslimiinta waxaana wax aad loogu farxaa in muslimiintu ay ciidda soo socota ciidul adxa ay masaajidkaasi ay ku ciidi doonaan ku farxi doonaan laba farxadoodna ay yeelan doonaan farxaddii ciidda iyo farxaddii furitaanka masaajidka oo si rasmi ah loo furi doono maadaama hadda aan u guda jirno xanuunkan corona iyo ay masaajid badan xiran yihiin laakiinse xilligaas ayaa lagu beegay in si rasmi ah masaajidka loo furo isla markaana uu noqon doono meel xilligaasi muslimiintu ay aad ugu farxaan. waa tahay bootaan aad baad u mahadsan tahay masaajidkan hadda waxaa weeyaan intaana hadda la soo celin ka hor waxaa la sheegay doorashooyinkii hore ee uu galay madaxweynaha hadda waddanka Turkiga haysto Erdogan ololihiisa doorashada waxaa kamid ahaa baa la yidhi hadaladiisii in haddii uu xukunka qabto uu soo celini doono masaajidkaasi gacanta islaamka ku soo celini doono ma la dhihi karaa waa qayb kamid a ballanqaadyadiisii oo uu rumeeyey Erdogan runtii hamigiisa iyo waxyaabaha uu campaign ku sameynayay iyo waxyaabaha uu ku rajo weyn yahay runtii waxyaabo aad u baaxad weyn weeyaan oo ah muslimiinta inuu meel dheer gaarsiiyo runtii hadal uu jeediyay jimcadii markii uu qalinka uu ku duugay heshiiskaasi ayaa dhowr qodob oo kamid ah waxa kamid ahaa inuu yiri furitaanka masaajidkan waxa uu gogol dhac u yahay ama gogol dhig u yahay in ay muslimiintu mar kale dib u soo hantaan masjidka al-aqsa waxa uu sidoo kale uu u yahay waxa ay ku farxaan dhammaan dadka dulman dunida ku dulman ha ahaadaan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba in ay mar un xaqii iyo wixii ka maqnaa ay heli karaan waxyaalo aad iyo aad u fara badan ayuu ka hadlay marka waxaa la dhihi karaa runtii waa wax aad iyo aad loogu ammaani karo madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan inuu masaajidkan dib ugu soo celiyay muslimiinta waxaana uu sheegay in ay halkaas ay ka bilaabanayso sidii ay muslimiintu ay iyagu aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ku tashan lahaayeen waxa aad iyo aad runtii wax looga xumaado ah in iyadoo masaajidiyo kaniisado loo bedelay in haddana dadkii masaajidda kaniisada oo bedelay aysan arintaasi ka hadlin haddana ay ka hadlayaan arrinta masaajidkan dib loogu soo celiyay masaajidnimadiisii ay cambaareynayaan oo ay leeyihiin masaajidkan mutaxaf ayuu ahaa waxaa loogu tuntay xuquuqdii dalxiiska ayaa lagu tuntay xuquuqul insaanka ayaa lagu tuntay waxa aad muhiim u haddana Rajab Tayyip Erdogan khudbadii jimcada jeediyay waxa uu sheegay in masaajidkan isagoo ay muslimiintu haddana ay leeyihiin in muslimiin iyo dad aan muslimiinba ahaynba ay imaan karaan oo ma imaan karaan muslimiin dad aan ahayn masaajid haa way imaan karaan maxaa yeelay inta ay masaajidka ay ku sugan yihiin waxay baranayaan taariikhda islaamka ayay baranayaan waxaa macquula in halkaasi in laga diyaariyo waxaa la yiraahdo tour guide dadka dalxiisayaasha haga oo muslimiin ah oo caqiidadii saxda ahayd islaamka diinta islaamka ee saxda ahayd dadku inay ku fahansiiyaan ayaa dhici karta oo ay u sharxaan magacaan meesha ku xardhan muxuu yahay laa ilaaha illa allah maxay tahay sawirka meesha ku yaala muxuu yahay in dadkaasi dalxiisayaasha ah ee haddana rida loogu sii furay oo ay imaan karaan in ay diinta islaamka ay ka bartaan maxaa yeelay masaajidada dad aan muslim ahayn way soo geli karaan tusaale haddaan usoo qaadano masaajidka jaamiya mosque ee ku yaala magaalada Nairobi laftigiisa waxa uu yahay mid runtii dadka muslimiinta aan ahayn masiixiyiinta ee Kenya ku dhaqan mararka qaarkood iridaha loogu furo si dalxiis ay diinta islaamkana ay wax uga bartaan masaajidkan ay arkaan sida loo tukado ay arkaan way dhacday sanadkii hadda aan kasoo gudubnay 2019 mar ayay dhacday oo dadka muslimiinta ahayn masaajidka loo furay oo ay galeen oo ay xitaa markii masaajidka la tukanayay ay fiiriyeen waxaa dhacday sidoo kale in casharo looga daaray marka masaajidka laftigiisa wuxuu noqon doonaa meel dalxiis ah haddana diinta islaamka lagu barto marka xitaa bootan oo adaa watay haddaan kugu sii daro waxaa weeye waxaa macquul galaba ma dhici karto in masaajidkan qayb masaajidku waa masaajid weyn weeyaan aad iyo aad qaybna ay noqoto qayb ma aragtay dalxiiska iyo hawlaheeda lagu wato qaybna ay noqoto qayb lagu cibaadeysto wali waxa macquul gal ninkan wadankan waxa weeyaan madaxweynaha ka ah si wanaagsan in uu waliba dhismo ku daro oo waliba ziyaado oo ay noqoto meel dalxiiska u qaas ah wali waxa kale cajiib ah bootan waxyaalaha cajiibka waxa aan hadda ka hor aan ka daawaday documentary ama barnaamij laga sameeyay
naqshada masaajidka si wanaagsan naqshada waxaa lagu leeyahay masaajidka laga sameeyey hortiisa naqshada wadan laga sameeyey ma jirin ha maxaa yeelay cuthmaaniyiintu waxay ahaayeen dad naqshad gaara leh dowlad ayay ahaayeen ilaa bariga africa ayay xukumayeen zanzibar mombasa soomaaliya carabaha wadan badan oo kamid ah ayay xukumayeen marka naqshadooda naqshad waxay ahayd runtii islaamkii iyo maxaa la dhahaye turkinimadii wixii dhan la isku mulafkeeyey la isku dhex daray ayaa waxa ka soo baxday wax aad u qurux badan oo maxaa la yidhahda la dhihi karo waa tasmiim ama naqshad aad u qurux badan oo ay gaar u yihiin iyaga u leeyihiin ayaa kasoo baxday meesha marka waxyaabahaas iyada dadka loo sharxaya oo lagu fahansiinaya baa dad badan inay ku islaamaan dhici kartaba aad butano masaajidka qiyaas ahaan imisa qof ayaa ku tukani karta maxaa qiyaas leedahay intee qiyaas kartaa aniga 5,000 may masaajidka waxaa ku tukan karta 16,000 oo qof ayaa ku tukan karta halkii mar waa magaalo dhane waa magaalo dhan marka turkiga isagoo jeclaa madaxweynaha turkiga Erdogan waxa ugu weyn dunida waxa uu dhisay bari dhexdaasa isbitaalka ugu weynaa turkiga ayuu turkiga ka dhisay haddana wuxuu ka dhisay isbitaalka ugu weynaa Soomaaliya ayuu isbitaalka ka dhisay haddana waxa uu dhisay xeradii ugu weyneed ee military leeyihiin ayuu Soomaaliya ka dhisay airportka ugu weynaana oo ka dhisay turkiga oo ka dhistay marka wax kasta wuxuu jecel yahay wax ugu weynaa marka qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu mar kasta jecel yahay wax weyn inuu jeclaado Soomaalida waxay dhahdaan weel weyn ayaa lagu baryaa marka adoo wax weyn haysta haddii aad la timaadid dowladnimada soo celin marka waxaa macquula idlo madaxweynaha turkiga waxyaalo fara badan ayaa maskaxdiisa ku jirta inuu soo celiyo islaamnimadii khilaafadii way ku jirtaa maskaxdiisa halkaasaan rabo inaan su-aal kaa weydiiyo botano si wanaagsan madaxweynaha dalka turkiga runtii cadow badan wuu leeyahay si wanaagsan laakiin haddana caalamul islaam aad baa looga jecel yahay maadaama hadda masaajidkan waxa weeyaan uu gacanta kusoo dhigay ma laga yaabaa inay u noqoto fursad kale oo wadanka uu kusii hogaamini karo runtii in muddo wadanka uu soo hogaamiyey isbedelada uu kasoo sameeyey wuxuu kasoo bilaabay gudoomiyaha degmada uu kasoo bilaabay ra-iisul wasaare soo noqday madaxweyne soo noqday muddo dheer ay wadanka soo xukumayeen muhiimaduna waxaa ah in dadka la gaarsiiyo fikir iyo meesha loo socdo meesha loo socdo haddii aad martusid meesha muhiim ah inaad wadanka aad sii joogtid oo aad sii xukuntid muhiim ah laakiin waa inay heshid dad kula shaqeeya isagu wuxuu ahaa dadkii ku tarbiyoobay ama kasoo shidaal qaatay macalinkiisii waa la afgembiyey markii la riday la afgembiyey isagoo wadanka xukumaya ma aysan quusan laakiin dhalinyaro uu soo dhisay ayaa uu yiri suga maalintiina waa dhiman tahay waxa uu ahaa Najmuddin Erbakan oo ahaa nin si weyn usoo shaqeeyey oo turkigan hadda dunida horumarkeeda iyo maxaa la dhahaa ilbaxnimada ka shaqeynaya waa ninkii soo aasaasay oo gacan weyn ka shaqeeyey gacan weyn ka geystay ayuu ahaa marka Erdogan haddii uu sii joogana waa khayr haddii uu ka tagana meesha dad mufakiriina ama dad la shaqeeya ayuu diyaariyey oo kala shaqeyn kara ilbaxnimadan iyo meesha loo socdo oo ah yoolka loo socdo waxaana macquula 100 sano markii ay ku beeganto markii ay dhacday dowladda islaamka in uu Erdogan isbedel lama filaan la yimaado waa wax isaga wax u gaara waa wax laakiin wax macquul ayaa dhici karta oo uu yiraahdo 100 sano ay ka soo wareegtay markii dhacday dowladdiin marka waa inaan isku tashadno dadka muslimiinta oo fikir weydiiyaan waxaa dhacday waa dhexdaas shir uu ka qayb galay oo ka dhacay wadankan Malaysia muslimiinta hogaamiyaasha ka qayb galeen marka haddii ra'yi loo gudbiyo muslimiinta waryaa diyaara aan isla shaqeyn karnaa la yiraahdo waxaa macquula 100 sano marka la gaaro inay wada shaqeeyaan ayaa dhici karta oo ay gacmaha is qabsadaan oo yiraahdaan bal aan noqono wadamada midoobay ee muslimiinta inay noqdaan oo waxa dhici karta laakiin se wax aan ognahay ma ahan laakiin se wax laga fikiri karo aad iyo aad botano doodan in la soo celiyo masaajidkan goormay soo bilaabatay goormay ay soo bilaabatay aan isu ka raaciyo su'aalaha doodan masaajidka goormay soo bilaabatay midda labaad masaajidka qaab ceenkeeba hadda lagula wareegay ma maxkamad ayaa soo saartay ma qaab baarlamaani ba ma digreeto madaxweynaha midda saddexaad oo dadka isweydiinayaan waxaa weeye hadda masaajidka yaa lagala wareegay oo laga saxiixday ma qolyadii kaniisadda ma hay-adda ee qaramada midooba ma hay-ad oo wadanka ku taalo turkiga laga leeyahay yaa hadda lagala wareegay masaajidka haddaan su-aalaha si kooban uga jawaabo masaajidka waxaa lagala wareegay hay-adda dalxiiska ee dalka turkiga ayaa gacanta ku haysay oo wax dalxiiska turkiga kamid ah ayuu ahaa marka
waxaana lagula wareegay digreetada madaxweynaha ugu dambeysay oo madaxweynaha uu saxiixa ku rogay ayaa lagula wareegay waxaana kasii horeysay maxkamadda go-aan ee gaartay oo ahaa in maxamed alfaatix masaajidkan markii uu gadanayay dhulkiisa iyo dhismihiisaba uu gadanayay uu heshiis uu ku gatay oo lacag uu ku gatay waqfina uu ka dhigay marka saddexaas arrimood marka la isku daro ayaa waxaa suurto gelisay in masaajidka lala wareego waxaana jirtay in dadka turkida in qaar ka mid ah dhallinyaradoodu ay ku haminayeen in masaajidka ay mar un ay furaan sanadii 2014 waxaan xasuustaa in xamlo ama olole la magabaxay saliga u qaata masaajidka oo ay dhalinyaro kasoo jeeda deegaanka Anadol ee Turkiga ku yaala ay iyagu soo awleen 31 bishii June sanadii 2014 marka dadka hamigooda iyo maskaxdooda waxaa ku jirta masaajidka ay dib ugu noqdaan mar un masaajidkan ay yihiin meel ay masaajidku yahay meel iyagu ay leeyihiin marka turki isbedel ayaa ka jira islaamkii oo soo noolaanaya xijaabkii oo soo noolaanaya maxaa yiraahdaa ilbaxnimadii muslimiinta oo loo arkay inay tahay wax ka mid ah jiritaankooda loo arkay marka cilmaanimadii oo ay yara aasayaan maadaama sharaf lagu leeyahay diinta islaamka waxaan aragnay dhowr jeer madaxweynaha waddanka turkiga oo gacanta saas uga haya musxafka quraanka kariimka isagoo muujinaya dadka dulman ee muslimiinta in ay yihiin dad u mudan gurmad waxaan la soconnaa xilliga abaaro dhacayeen Soomaaliya ka dhacayeen 2011 waxaan la soconnaa xilligaas isagii xaaskiisii inay ka degeen Muqdisho oo ay la kulmeen xilligaas madaxweynihii Shariif Sheekh Axmed gargaar ay gaarsiiyeen xilligaas xiriirka bilowdana uu yahay ilaa haatan mid jira waxaan la soconnaa markii Falastiin dulmiga iyo dhibaatada ka dhacday inay garab istaageen waxaan la soconnaa dulmiga Masar ka dhacay in ay garab istaageen oo ay diideen in ay ictiraafaan dowladdii militarigu waxaan la soconnaa dadkan lagu laayay magaalada Switzerland dalkaasi Switzerland in markii dadka la laayay in Erdogan uu yeeray safiirka Switzerland uu yeeray dadkan sidee ayaa loo laayay waxaan la soconnaa kale markii la laayay dadkii Raabica al-Cadawiya ku sugnaa taageeraya madaxweyne Mursi in uu Erdogan uu muujiyo shacaar kan la magabaxay Raabica in uu muujiyay oo dunidaba ka dhaqan galay oo isagu dadka asaaska u ahaa oo kamid ah shacaarkaasi marka Turkiga way tagtay waxaana aaminsanahay inay wax badan ay u qabatay ummadda muslimka iyo dalkeedaba aad iyo aad daawadayaal kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Bootaan imkana waxaan insha Allah aan qadka u gali doonaa oo aynu wici doonaa Sheekh Jacfar waxaa wareysiga ka qaadi doona hadwaa leedmo Maxamed Cabdi Bootaan insha Allah inala socda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Idil Cumar waxaan haddana khadka telefoonka si toos ah aan usoo gelinaynaa Sheekh Jacfar Xaaji Cali oo ka mid ah culimada magaalada Nairobi isla markaana aan wax ka weydiin doono waxa uu kala socdo arrimahan masaajidka dib hadda loogu furay Sheekh Jacfar Xaaji Cali ku soo dhawow marka koowaad channelkeena Bootaan Media iyo daawadayaashana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وآله وصحبه وسلم وبعد marka hore aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkan oo aad ummadda aad u bandhigaysaan anigana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato masaajidkaasi ay Faatixa mise Al-Xaaji Faatuma leeyahay maxaa la dhahayay oo Turki ku yaala waxaan marka hore aan ugu hambaliyeynayaa dhacdadaani anigoo dib waxa wax u milicsan doona shacab madaxweynahooda iyo baarlamaankooda oo meeshaasi si sax ah wadadeeda saxda ay ku soo celiyeen horta waan ugu bishaareynayaa midda labaad waxaan rabaa inaan wax yar dib aan idin xasuusiyo masaajid meeshaani hadda waxa waaye ay Faatuma leeyahay maxaa la magacaas ay leedahay ama Xaaji Faatuma waa meel weyn ay ahayd oo dadka muslimiinta oo dhan waxa waaye meelaha ugu waaweyn oo qiimaha agtooda ku leeyahay kamid ahayd sababtoo ah waxa waaye Muhammad al-Faatix oo ciidankiisii oo rasuulka ugu bishaareeyay muslimiinta waxa waaye ni'mal jeeshu jeeshuha wa ni'mal amiiru amiiruha Muhammad al-Faatix ayaa gacanta muslimiinta ku soo celiyay maxaa yeelay dhul ilaahay baa iska leh inna al-arda lillahi yurithuha man yashaa'u min cibaadihi Muhammad al-Faatix markuu meesha uu furay meeshaan la yiraahdo Constantinople ayaa la dhigi jiray Istanbul meesha hadda la leeyahay Turkiga oo dhan magacaas ayay leedahay al-Faatix
oo waxa waaye oo hadda oo ay gaalada aad uga qaylinayaan wixii markaasi gaaladii meesha joogay oo laga furtay oo la xoreeyay waa laga iibiyey oo waxa waaye maxamed al-faatix wuu ka gatay marka muslimiinta ayuu masaajid uga dhigay muslimiinta waxay ku cibaadaysanayeen markaasi ka dambeeya ku dhawaad 500 oo sano ku dhawaad ayay ku cibaadaysanayeen marka meeshaas ayadoo sidaas ay tahay khilaafadii islaamka sidaad ogtihiina waxaa u dambeysay cusmaaniyiintii markii ay burburtay macnaha ay burburiyeen gaaladii iskugu tageen ay burburiyeen ninka la yiraahdo Mustafa Kemal Atatürk ayaga soo ay wateen asaga dib ugu ku celiyay waxa waaye gaaladii gacantoodii iyo waxa ay rabeen iyo waxyaabo oo maxaan ku raada dalxiis iyo waxyaabaha la fiirsanayo waa gartay ugu talagalay marka waxa waaye haddana markii Erdogan meesha uu soo noqday taqriiban waxa waaye 12 sano mise 20 sano ku dhawaad waxa waaye tarbiyadii asagoo uu haysto oo si tartiib ah dadka si ay ugu bislaadaan kuma soo boodin masaajidkeedii oo laga boobay oo masaajidkii laga dhacay oo Mustafa sameeyay buu ku soo boodin si tartiib ah markay dadkii ay bislaadeen awoodiisa ummadda awoodiin ay soo noqotay muslimiinta xoogoodan oo soo noqday ayuu masaajidkii awal 500 sano wax ka badan lagu cibaadaysanay inuu dib ugu soo celiyo waxa waaye aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay muslimiinta meel ay joogaanba qalbigooda ayuu ku yaalaa sida baytul maqdis qalbigooda ugu yaalo kacbada iyo madiinatul munawwara qalbigooda ayaan muslimiinta qalbigooda ku weyn yihiin marka anaga aad ayaan ugu faraxsanahay waa gartay Sheekh Jaafar Xaaji Cali waxaad ka warantaa masaajidkan hadda la furay isla markaana la furi doono maalmaha ciidda oo farxadda muslimiinta ku beegan waxaad ka warantaa maxaa uu uga dhigan yahay muslimiinta guud ahaan iyo dadka dulmiga soo maray dunida ku nool jazakallahu khayran waxa waaye nasri weyn waaye oo muslimiinta u soo hooyatay oo waxa waaye meel kasta caalamka jooga muslimiinta kal jasad alwaahid waaye waxa waaye qofka muslimka meeshii jooga uu qofka la farxiisa in la farxo markuu u murugsan yahay lala murgo maalintaasi waa laba ciidood ayaa dadka muslimiinta ay haystaan waxa waaye sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam maalintii Khaybar ay gacantiisa ay ku soo noqotay oo uu furtay Sheekh Jaafar hello magaalada Madiina oo yimid rasuulku wuxuu yiri ma waxaan ku farxaa buu yiri waxa waaye Khaybar oo Sheekh Jaafar codkaada waa nooga mar noogu cili maxaa tiri ku halkaas ku cili waxaan iri marka meeshaasi waxa waaye maalin aad u farx badan waaye muslimiinta faraxooda dad dhan inay ku wada farxaan markay murugsan yihiin in ay wada murgaan waxa waaye taas aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxa waaye misaal oo laba farax waaye ciidii muslimiinta iyo masaajidkaas oo muslimiinta si diba masaajidnimadiisa ugu soo noqday waxaan misaal u soo qaatay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii uu Khaybar gacantiisa ay ku soo noqotay oo yahuudi uu ka xoreeyay waxa waaye waxa yimid islaamkiiba Jaafar ibn Abi Talib iyo asxaab waxaan farxaa buu yiri Khaybar oo ilaahay gacantayda soo geliyay ama بدون جعفر iyo ciidankiisa soo galay miyaan ku farxaa marka waa anagana waan la farxsanahay waxa waaye qalbigeen ayaa la jooga xibnaheen iyo jirkeen inkasta oo aan hadda aan ka fognahay oo geeska Afrika aan joogno Kenya aan joogno Nairobi joogno Mombasa aan joogno qalbigeeni meeshaas ayuu jiraa aad iyo aad u mahadsan tahay Sheekh Jaafar Xaaji Cali ayuu kaasi ahaa botan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaa iminkana waxaa qadka inoogu jiro walaalkeena saaxiibkeena nin dhalinyaro oo aqoon-yahana arrimahaasina wax badan kala socdo insha Allah Maxamed Cabdullaahi Fare ayaa iminka qadka inoogu jiro marka asaga insha Allah waraysi ka qaadi doona haddii la idmo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Idle Cumar sidaad maqlayseen Maxamed Cabdullaahi Fare waxaa ka horeeyay Sheekh Jaafar Xaaji Cali bal iminkana khadkasna waxaan gelinaynaa oo aan ka waraysan doonaa isla arrimahani Maxamed Cabdullaahi Fare oo muddo dheer isaguna isha ku hayay isbedelada dalka Turkiga iyo xaaladaha dalka Turkiga Maxamed Cabdullaahi ku soo dhaw barnaamijkeena aad ayaa u mahadsantahay walaal Maxamed bal waxaad nooga warantaa masaajidkan iyo taariikhdiisa oo kooban iyo waxa uu muslimiinta xilligan joogta uu ku soo kordhin doono maadaama aan la socono
in masaajidadu meelo badan oo dunida ka mid ay ku yaalaan masaajidkan khaasatan maxuu taariikh wataa oo xambaarsan yahay bismillah walaal horta meesha masaajidka hadda dib loogu soo celiyey waxaa la dhahaa Hagia Sophia waxaana la dhisay sida la sheego 40 sano ka hor dhalashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam taas macnaheedu waxaa weeye 1500 oo sano ayuu dhisan yahay ma garatay si wanaagsan meeshaasna waxay ahayd xaruntii kaniisadda bari ee orthodoxka si wanaagsan xaruntii romaankeena ahayd ma garatay waa gartay waqti nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis ayuu wuxuu ku leeyahay la taftaxanna alqistandiniya wala nacma alamir amiruha wala nacma aljeish dalika aljeish waxaa weeye waxaa la furan doona qistandini oo istanbul hadda loo yaqaan waxaa baaqi nimco yeeshay amiirkeeda iyo ciidanka waqtiga furanayo haye taas waxay keentay saxaabo badan inay isku dayaan in ducada iyo baalkii maanta uu nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay aad macna inay ku guuleystaan iyo nimcadaas la sheegay nimcadaas si wanaagsan waxaa kamid ahaa saxaabiga weena abi ayub al-ansari radiyallahu anhu abi ayub al-ansari wuxuu ahaa duulaanka ugu dambeeyay saxaabada ay ku qaadeen qistandiniya saxaabiga la socday intaasoo soo isku dayay asagoo markaas wuxuu jiray 98 jir asagoo ah buu dagaalka qayb galaya nin waayeel ayuu ahaa waayeel baa laakiin waayelnimada waxaa dhiirigelinayay ducada nabi sallallahu alayhi wasallam iyo dhiirigelinta uu nabiga siiyey dadka furanayo si wanaagsan waqtigaas waxay ahayd 668 sano ma garatay si wanaagsan milaadiga ah waxaana la furtay 1453 milaadi macnaha waxaa weeye 785 sano iyo ka badan ayaa la isku dayay in nabi sallallahu alayhi wasallam ducadiisa iyo amaanta uu soo jeediyay lagu guuleysto laakiin ugu dambeyn waxaa ku guuleystay baalkii khaliifadii cusmaaniyada la dhihi jiray maxamed al-fatix si wanaagsan waxyaalo cajib waxaa kamid ah maxamed al-fatix waqti uu furanayay wuxuu jiray 22 jir nin dhalinyaro ayuu ahaa nin aad u dhalinyar buu ahaa waxaa weeye halkaasna waxaa kala laqabka la dhihi jiray maxamed al-fatix meeshaas waxay xarun u ahayd baalka muslimiinta oo ku tukan jireen ilaa iyo 600 oo sano iyo ka badan ma garatay si wanaagsan 1934 habaarqabe Mustafa Kemal Atatürk ayaa wuxuu ka dhigay madxaf si wanaagsan una ognahay de Lausanne heshiisyada Lausanne uu galay ninkan la yiraahdo habaarqabe Mustafa Kemal Atatürk inuu khilaafadii ka salgareeyay inuu yiri baalkii meesha dastuurka marbiyeedka inaan wax cashuur laga qaadin iyo in meeshaas uu bedelayo madxaf waa gartay marka maxamed waxaad nooga warantaa taariikhdaasi aadka u macaan oo kasoo bilaabanayso in nabigeena sallallahu alayhi wasallam in xilligiisii oo qistandiniya in la furto iyo ciidanka furan doona inay barakeysan yihiin oo nimco ay leeyihiin waliba botan aan kugu dare waxyaalaha kale cajiibka waxaa weeye ninka meesha furtay magaciisu waxaa la dhihi jiray maxamed marka waa yacnaha taasaa waxay ka dhigaysaa wax cajiib ah wanaagsan maxamed ibnu muraad ibnu maxamed al-cusmaani baaqi laakiin faatax magacaas baa markaa dalka ka raacay maadaama uu furtay qistandiniya furtay oo turkiga istanbul iyo hadda la magac baxday marka maxamed waxaan ku weydiinayaa in dheer ayaad in badan ayaad indhaha ku haysay maxamed waxaan ku weydiinayaa in badan ayaad indhaha ku haysay xaaladda turkiga hadda xaaladda turkiga iyadoo uu waddanka uu hogaamiye ka yahay mudane Rajab Tayyip Erdogan maxay arrintan ay uga dhigan tahay muslimiinta meel kasta ay joogaan turkiga cadaadis badan ayaa ku jirtay muddo badan laga bilaabo waqti habaarqabe Mustafa qabtay ilaa ay waqti dhow muddo badan waxay daba ordaysay inay ka mid noqoto midowga Yurub si cad baa loogu sheegay ummad muslim inay ka mid noqon karto midowga Yurub dowladda islaamiga ugu dambeyn waxaa uu xisbiga markuu ku guuleystay wuxuu soo jeestay dhanka bari oo ah ummadda muslimka inuu wax la wadaago قربون وشيء نكان لي هذا رجب طيب أردوغان سلطان رجب طيب أردوغان إن وحرير وراك الله كمان دون الدولة وحرير وناس كلا ده حيسي دولة عثمانية تاريخ يدل تسعة عثمانية تركيا تستاهل الماحن النبي صلى الله عليه وسلم ده وحير واتركوا الترك ما تركوكم يا
qoomiyad adag weeyaan ummadan bulshada muslimkana wax badan usoo qabatay jihaadkana qayb badan kasoo qaadatay laga soo bilaabo kun iyo xogaagii kun iyo waxay ahayd adiga waxaa tiraa konton iyo xogaagii ilaa iyo hadda laga soo gaaray waa dad halgamayaal bay ahaayeen turkigana hadda awoodda islaamka ee ummadda oo dhan ee fiirsanaysa weeyaan caalam islaami oo dhan turkiga hadda indhaha ku hayaan bedelkii dawladaha carabeed ee haddeer waxaa weeyaan shalay waxaa dhacday meel buurta la dhacalaa ee u dhow madiina munawar ah ayaa gabdho qaqaawan sawir kusoo gelayay waa rumsigii islaamka bedelka maantana ayaa sofia lagu soo celiyey masjidka waxa weyn wey waktiga muslimiinta ismarool badan ayaa haysto waa gartay marka waxaa wey waa meel farxad maarata murugo badan maadaama ay la soo kulmaan waa farxad aad ummadoo dhan ugu farxeen uguna hambalyeeyeen waxaana ka dareemi kartaa baraha bulshada aad iyo aad dad yar mooye boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 caalam islaami ama 90 aad bay ugu hambalyeeyeen mahadsanid maxamed kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi faray oo barnaamijka aanu ku wareysanayn daawadayaal waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijkeena maxamed cabdulaahi faray waxaana barnaamijka halkan si wada jir idinku soo jeedinayay anigoo ah maxamed cabdi bootaan iyo saaxiibkay idle cumar intaan barnaamijkan mid lamid ah kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.